Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabada iyo daawadayaal idil ahaantiinba meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeena duurjoogta. Barnaamijkeena duurjoogta oo aynu ku soo qaadanay taxanaheennii inoo socday ee webiga Luangwa ee dalka Zambia. qaybtanna waa qaybtii afraad ee taxanaheena. 5 maalmood iyo 5toodii habeen ayay raxantan la ogeysida daba socotaa. Caawa raxantu waxay ka baxday xuduudeedii waa xuduudda Wambe waxaanay gashay xuduuddii raxanta loo yaqaano Meyti. Loogisida dhibaato kale ayaa haysata oo dhanka habeenkii marka la ugaarsanayo inta badan way adag tahay inay wax iska celiyaan maadaama aanay indhahoogu aan ahayn kuwa libaaxa oo kale. Loogisidu waxay socotaa muddo 18 saacadood maalin kasta. waxay nasan kartaa maalintii saacado ka mid oo ay arkayso khatarta iyo cadowgeeda. raxantu waxay ka raadinaysaa halkii ay ka bilaabi lahayd weerarkeeda. raxantu aad bay u arkaysaa loogisida balse loogisidu qaar ka midi ma arkayaan inkastoo ay loogisidu xagga urta ay aad ugu dheerayso oo urinayso in weli raxantii iyo weliba kooxdii Wamba ay daba socoto. libaaxu 7 jeer laab ayuu indhihiisu ka khatarsan yihiin ama ka aragti badan yihiin xayawaankan kale markay gaadho habeenkii. durba raxantii Wamba waxay bilowday dhaqaaqoodii iyo weliba ugaarsigoogii. raxanta kuwa aan qaangaadhin marmarka qaar waxay isku dayaan inay wax ugaarsadaan iyagoo kuwa kalena weerarka gelaya balse marmarka qaar kuma guulaystaan oo ugaadha way didiyaan. haddeer kuwii aan qaangaadhin ayaa isku dayay inay ugaarsiga galaan balse duurjoogtu waa ay diday waanay kala yaacday waxaanay garatay in meesha cadow soo galay. kuwan aan qaangaadhin ma haystaan farsamo badan oo ay ku ugaarsadaan iyo weliba waayo aragnimo. inta badan 90% kuma guulaystaan kuwa aan qaangaadhin.
balse hadda waxaa soo gashay weerarka kuwii awalba raxanta cuntada u baadi dooni jiray. Sayn hore u soo sheegnay, 9 ka mid ah ayaa ah ugaarsadayaasha khatarta ah ee kooxda, halka 11 kalena ay iyagu yihiin kuwa suga wixii la soo helo. balse caawa dhammaantood way wada socdaan, waxaana isku dayeen 11kaasu in ay wax ugaarsadaan, balse kumay guulaysan. haddase durba waxaa weerarka qaaday 9kii kale iyo weliba kooxda oo isku duuban oo raxanta ah, waxaanay durba qabteen xabad deera ah. raxantan 20ka ah kuma filna deeradu, balse waxay siinaysaa awood ay ku ugaarsi tagaan oo ay ugaarsigooda ku sii wataan, maadaama ay dhowr cisho qatanaayeen. hadda mar kale waxay ugaarsadeen waa xabad loogisiya, taasi oo dhammaan qoyska oo dhan ku wada filan. mid kasta calooshiisa wixii uu ku qaadi karo ayuu ku qaadanayaa. raxantan waanba ugaarsigoogii xalay way ka baxeen xuduudooda, waxaanay galeen si dhuumasho ah xuduudda raxanta kale ee loo yaqaano Meyti. balse hadda waxay dib ugu soo laabteen xuduudoodii, maadaama ay dhergeen, mid kastaana qaatay hilib ku filan. waraabuhu isagu wuxuu helay oo aan cidi ugu tegin, raxantuna soo dhaaftay oo aanay isha ku dhufan midkii isagu biyaha galay ee weliba irmaanaa. isagu saaka ilaa hadda laftigiisu waxa uu ku sugan yahay waraabahanu xuduud aanu lahayn. kooxdan waraabayaasha ah waa koox kale oo iyaguna xuduuday kala leeyihiin, waxaana la yidhaahdaa kooxdan baali baa la yidhaahdaa. waxaan sidaa u badnayn ayay loogisidii ka tegeen, intaana weliba waxa u diyaar ah ama sugayay waa haadda iyo gorgorka. kooxdan baali ee waraabayaasha laftigoodu way ka huleeleen goobtani, maadaama aan ahayn xuduudkooga way iskaga baxeen si aan loogu iman kuwii xuduudda lahaa saaka. kooxdan baali xalay halkaasi way ku nabad gashay. shaqo badan iyo ugaarsi badan iyo daal badan iyo tacab raxanta waanba soo maray, waxay hadda qaadanayaan nasiibo. kaleymadku ama waqtigu aad buu u kulul yahay, cadceeduna aad buu u kulushahay, waxaanu mid kastaa ku talagalay calooshiisa waxa ku jira inuu seef garaysto oo uu kaydsamo. waxaanu jiifaa geedaha hoostooda oo ay ku nasanayaan.
shimbirahanaynu arkaynaa waxay iyagu cawska dhexdooda ka cunayaan waa cayayaan. Ilaahay baanu ugu talagalay iyaga laftigooga inay halkaa ka raadsadaan cuntadooda iyo quudkooda. Loogisidii waxay ku soo noqotay xuduuddii Wamba ee raxanta libaaxyada, waxaanay ugu soo noqdeen cawska iyo biyaha yar ee halkaasi ku sii hadhay. Loogisidu maalin kasta way cabtaa, waxaanay cabtaa 9 galaan oo biyo ah. Maantana waxay u baahan tahay inay cabto. Raxanta laftigeegu waxay la socotaa oo eegaysaa waxa weeyaan loogisida. Kani waa mid kaligiya oo isagu ka mid ahaa loogisida. Waxaanay eegayaan raxantu fursaddii ay ku cuni lahaayeen ama ay ku qaban lahaayeen. Waa tahay daawadayaal, intaasaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii ama qaybtii 4. Intaynu ku kulmi doonno qaybta dambe, waxaan idin leenahay dhammaantayo nabadgelyo.